Waxaan ahaa mid aad u jecel ku safridda duurka amaba meelaha cidlada ah oo keymaha ah. Waxaan ahaa mid mar walba u safra meelo kala duwan oo keymo ah amaba cidla ah, balse maysan jirin wax cillad ah oo aan la kulmo. Kaliya waxaan arki jiray xayawaanada kuwooda aan waxba cunin amaba kuwooda iska caadiga ah oo aan dad cunka ahayn. Mana aanan weligay la kulmin wax dhibaato ah mar aan ku jiray duurkaas. Maalin maalmaha ka mid ah ayaan si caadi ah u soo galay duurkii, waxaana soo aaday meel aan horey u maray. Markaan xoogaa hoos socday waxaan soo gaaray waddadii aan horey u mari jiray. Waddadii markaan arkay waxaan is dhahay maanta ka yara beddelo oo waddadan kale aad, waadna fahansantahay meeshaan. Markaan wax yar socday waxaan arkay wax attention-kayga soo jiitay amaba dareenkayga soo jiitay oo ahaa geedo iga yara fog oo waraaqado ku dhegdhegnaayeen. Waxaana soo aaday dhankii iyo geedaha si aan u fiiriyo waraaqadahaas. Waxaana arkay dad waraaqado amaba geedahaas ku dhegdhegan magacyadooda ayna ku qoran tahay in la la'yahay. Waxaan la soo baxay kaamiradeeda, waxaana bilaabay inaan wixii duubo aan meesha ku arkay. Waraaqada ayaan soo qaaday oo iyadana dhulka taalay, waana fiiriyey. Dareen cabsi leh ayaan dareemay, aad ayaan u cabsaday. Waxaana dareemay in meeshaan qof kale uu ku dheganaa oo qofkaasna uu maqan yahay. Kaamiradii ayaan sii watay, si fiican ayaan u duubay. Markii aan wax yara duubay waxaan dareemay amba aan arkay inay gadaasha dambe teendho ku taalo, balse kaamiradii ayaa iga dantay. Waxaan dhahay bis haddii kaamirada dantay iska laabo. Waxaan hal mar si kedis gadaasheeda uga maqlay, ma ahan xilligii aad laaban lahayd, hadda unbaad keenta soo gashay. Waan naxay, gadaal haddii aan soo fiiriyo waxaaba taagan nin leh weji aad u cabsi leh, ilka dhaadheer, isaga dhanna aad u qaab daran, sidoo kalena aad u dheer, kuna dhow ama aan ku qiyaasay 2 mitir iyo bar dhirirkiisa amaba sida uu dheer yahay. Cidihiisa waxay ahaayeen kuwo dhaadheer, haddana madow, dharkiisana waa ay jexjexnaayeen. Wuxuu igu dhahay, ma loo baahna xilligan inaad baxdo, hadda ayaad keenta soo gashay, ku raaxayso. Waxaana ku dhahay, miyay ogolaan kartaa inaan baxo? Inaan baxa ayaan rabaa. Maya aniga waxba kaama rabo, ha cabsanin, keliya waxaan rabaa inaan ku caawiyo, kulana hadlo, waxna ha ka murugin. Intaas ayuu igu yidhi. Waan isfiirinay anigii, maadaama aan ninkan aad uga cabsanayo, aanan awoodin inaan diido waxa uu isagu i leeyahay. Aad ayuu i soo fiirinayay. Waan fikiray, waxaana ku fikiray inaan wax kastoo dhaho iska qaato. Waana soo baxay, waana soo raacay isaga. Wax yar markii uu waday ayuu meelna fadhiisiyey. Wuxuuna igu yidhi, weligaa ma maqashay ciyaar la dhahayo run ama dhimasho? Ciyaartaas aqoon miyaad u leedahay? Markaas waxaan dhahay, haa, horey ayaan u maqlay, waan arkay meel lagu dheelaayo. Wuxuu igu yidhi, okay, saas haddii tahay waxaad soo qabataa boorsadaada iyo sidoo kale taleefankaaga, labadaasba ii dhiib, aad ii dhiibta ayaan u baahanahay. Amarkiisa maan diidi karin. Waxaan islahaa si uu dhaqso kuu fasaxo, wax kastuu ku dhaho u sameey. Waana u dhiibay labadiiba. Wuxuuna igu yidhi, ma ogtahay aniga waxaan ku dhashay Argentina, waxaana meeshaas looga yaqaanaa run amaba ciqaab. Keliya run haddii aad been sheegto ogow wixii kugu dhaco. Wuxuuna igu yidhi, haddii ay 3 mar igu soo aado dhalada, adiga ayaa guulaysatay oo waxaan kuu ogolaanaya inaad baxdo. Balse haddii ay 3 mar adiga kugu soo aado, ogow wixii kugu dhici doono. Waxaan igala kulmi doontaa cawaaqib aad u daran. Ciyaartii ayaan bilaabay, dhaladii ayaan la wareejiyey. Waxaan isla markii ku soo aaday isaga. Wuxuuna yidhi, weydii, iyaka adiga miyaa qarisayna? Ayaan ku dhahay. Wuxuuna igu yidhi, haa, dhammaantood aniga ayaa meel ku og. Markii haddana waa la bilaabay, waan la wareejiyey. Markiiba isaga ayaa haddana ku soo aaday. Wuxuuna igu yidhi, nasiiblow ayaa tahay maanta waa maalintaada. Waxaana weydiiyey, iyaka meeshan miyaad ku dugtayna? Su'aashaas markaan weydiinayay waan yara cabsanayay oo aad ayaan uga cabsanayay. Hal mar ayuuna qosol la dhacay. Wuxuuna igu yidhi, maya, balse waad ogaan doontaa meesha aan ku duugay haddii aad ciyaarta guulaysato.
ama aan kaa guulaysto labaduba. Waa uu wareejiyey baashii, balse markaa nasiib darro aniga ayaa igu soo aaday. Wuxuuna igu yidhi, ii sheeg kaamiradaas maxaad ku qabanaysay? Waxaana ku dhahay wuxuuna igu yidhi iska ilaalina been isku sheegto. Waxaana ku dhahay internet ayaan ku raadinayay. Okay ayuu dhahay. Mar kale ayuuna wareejiyey. Nasiib darro anigii ayaa haddana igu soo aaday. Wuxuuna igu yidhi, haye markaan waa markaagii. Nasiib darrada dhankaaga ayaa soo aaday. Wuxuuna igu yidhi, labadan soo hooyada iyo walaasha ma ahan? Ii sheeg. Soo iyaga ma ahan ayuu igu yidhi. Waxaan bilaabay inaan ooyo, weliba aan lugihiisa qabsado, ana ku dhaho ha samaynin midaas. Wuxuuna igu yidhi, waxaas iska dhaaf, jaxanjaxaas iyo wararkaas iyo suurahan igala tag. Meesha ciyaar ayaan dheelayna, ciyaarteena nabad. Waana ooyo, waxaana ku dhahay midaas ha samaynin. Wuxuuna igu yidhi, waa inaad doorataa markii aan adiga ku dilo, hooyada ama walaasha. Waxaan ku dhahay aniga ii dil, bas labadooda iska dhaaf. Wuxuuna igu yidhi, saas haddii tahay labadooda waan dilayaa ama mid dooro. Markaas waxaan ku dhahay waxaan doortay hooyaday. Ninka ayaa dhahay aniga waaya. Aad ayuu ninkii igu qoslay. Wuxuuna igu yidhi, okay istaag, ciyaarteena ayaana dib u bilaabanaynaa. Darba ayuuna gadaal igu dhuftay. Waa la wareejiyey. Markaan kaasaas u wareejiyey ayaan qabsaday, sababtoo ah markaan haddii aan guul daraysto waa markii aan dhimanayay, lana dilayay mid ka mid ah qoyskayga. Hal mar ayaan dhex kala qaaday, balse waxaan arkay waxa aan aad ugu farxo oo waxa ay ku aaday isaga. Waxaan ku dhahay aniga ayaa guulaystay, ma bixi karaana? Haa waad bixi kartaa, balse hal shardi. Waxaan rabaa inaan kuu sheego wixii kugu dhici lahaa haddii aad guul daraysan lahayd. Ma malaysan kartaa wixii kugu dhici lahaa ama cawaaqibta aad aniga igala kulmi lahayd? Maxaa kala kulmi lahaana? Ii sheeg. Wuxuu igu yidhi, waxaan dharkaaga ku jeexi lahaa cidiyahayga. Waxaan bilaabi lahaa inaan jeexjeexo calooshaada ilaa ay bannaanka u soo baxdo. Waxaana ii noqon lahayd cashadeeda khaaska ah caawa. Waxaadna arki lahayd waxyaabo aadan weligaa horey u arag, weliba adiga oo nool. Anigii ilin ayaad igu soo istaagtay, aad ayaana u naxay. Waxba ha cabsanin, hadda adiga ayaa guulaystay. Waxaana iska soo baxay anigoo aad u naxsan. Hal mar ayaan dareemay in gadaasheeda qof uu soo taagan yahay. Waaba ninkii gacanta ayuu niga qabtay. Wuxuu igu yidhi, waan ogahay inaad wax duubtay. Waxaad samaysaa internetka dhig, balse ma ahan booliiska. Ha u dirin booliiska, balse internetka dhig. Dii ay meeshaan booliiska imaadaan, ogow wixii aan kuu sheegay ayaan kugu samayn doonaa. Haddaba iska taxaddar. Waa hadalkii uu yidhi. Anigii aad ayaan u naxay. Waan ogolahay ayaan ku dhahay. Gacanta ayuu niga qaaday. Naxdin daraaddeed anigii waan iska soo baxay. Amarkiisii ayaan qaatay. Fiidiyowgii ayaana waxaan dhigay meeshii internetka ayaan geliyey. Maalinkaas kadib aniga iyo waalidiinteeda waan iska soo baxnay. Waxaana kasoo tagnay meeshii. Sheekadaasna cid uma aanan sheegin ama qofna uma aanan sheegin. Keliya aniga ayay u koobnayd.